إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن شاء الله تعالى waxaan rabaa inaan kelimo yar ka idhaahdo bishan ramadaanka ee barakaysan aan ku jiro. bishan ramadaanka dadka muslimiinta oo dhan way wada soomeen. ruux kasta oo muslima, rag iyo haween, waxaa waajib ku ah oo kari kara inuu soonka soomo. soomku wuxuu leeyahay waxyaalooyin fara badan oo ay ka mid tahay fadaaisha uu leeyahay. soonka luqada waxaa lagu yidhaahdaa waa mutlaqul imsaaka can shay. asalba soonka waxaa la yidhahdaa inaad wax ka istaagto, ayadoo arrintaa ilaahay uu ka warramay subxaanahu wa tacaala. maryamo bintu cimraan, ilaahay muxuu yidhi isagoo ka warramaya, faquulii inii nadartu liraxmaani sawma. waxaad tidhaahdaa waxaan ku nadiray allaha raxmaana inaan aamusnaado. markaa soomkeedu ma ahayn soomkeen innaga aynu hadda cuntada ka joogsanay, aamus buu ahaa. sharciga soomka waxaa lagu yidhaahdaa, sharciga islaamka, الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. waxaa sharciga lagu yidhaahdaa soomka adiga oo ka istaaga calooshaada iyo farjigaaga waxay rabaan, waagu markuu bariyo waaga hore ilaa gobolka uu ka dhaco, lagu daray niyo, niyadiina aad ku darto, oo ruux hadduusan niyoonin soonka uma jirahayo wey. uusan habeenkii odhanin waxaan berri baan niyoonhayaa oon soomhayaa uusan odhanin. fadliga uu leeyahay soomku aad buu u badan yahay. waxaa ka mid a asalba waxaan la yidhaha soomku waa cibaado badaniya wey. waa cibaado jirhkaaga ku saabsan oo yataqarabu biha alcabdu ila allahi tabaaraka wa tacaala. waa cibaado ku saabsan jirhka aada leedahay inaad maalintaas soonto, ood ilaahay dartii u oonto, u gaajooto, u aamusnaato, khayr u samayso. soonka haddaan kolka hore aan yartaa taabanno, soonku wuxuu ka mid yahay axkaamta waxaa ku dureereysa sharciga. soonku wuxuu u qeybsamaa kolka axkaamul khamsaha la yidhaahdo ayaa ku dureereysa. soonku wuxuu u qeybsamaa mid farala, mid sunna ah, mid karaahiya, mid xaaraama, mid sunna ah. intuba wuu noqonayaa ama ibaaxa. soonka faralkii muxuu noqonayaa kolka? waa shahru ramadaan almucadam wey. bishan barakaysan soonka la soomo wuxuu noqonayaa soom oo waajib ah, ama soom oo waajib ah oo ruuxu uu naftiisa isagu ku waajibiyey. kolka soomkaasi waxaa la yidhahdaa soomu nadir. haddaad tidhahdo waxaan ku nadirahayaa inaan soomo, marka waxay noqonaysaa inuu kugu waajibo. soonka aan intaa ka soo hadhay oo ramadaanka ka soo hadhay oo ayaamaha kaloo la sooma ah wuxuu noqon sita shawaal baa ka mid a. waxaa ka mid a khamiista iyo isniinta ood soonto, ayaamul beydka maalmaha cadcad oo 13 iyo 14 iyo 5 bil walba ood ka soonto, waxaas oo dhan sunno noqonaya. waxaa uu soonku ka xaaraan karaahiye noqonayaa maalinta oo 30 shacbaan tahay inaad soonto karaahiye wey.
وحاليا يوم الشك بالله وحديها كرت صوم إنه يهي وحديها كرت إنه شعبان يهي لما أقول لكم مالتها إلا صوم صوم كمحرم كي الله أقولين إلا صوم وحكم ذا لبدي عيدين عيد الفطر عيد الأضحى إلا صوم الله ما أقول أيام التشريق صدها مع الموضع عرفة كدم بيسنا إيجانا لما أقول إلا صوم صوم كمركب وحنقونا يا سلاس أحكام وحكود ليريس أحكام الخمسة دي أدلة الله يا صوم إلهي سبحانه وتعالى وحو كور رمي قرآن كيسا كريم كأيو كور رمي إن أصومك ومدي هوران واجبكها إننا واجب نقويها إلهي وحول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحاول واقع الله سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين يا أيها الذين آمنوا بالي كتب عليكم الصيام وحال فرل يلي بالليلي صوم بالواجب يلي كما كتب على الذين من قبلكم ذاتك إذن كهر هيبا سيد الله فرل يلي وحال يابا صومكو إنه إسخلاف سنة سيدنا إنه أصولنا إيا سيدنا أمداس إنه إسكو ميدا هاينا والغا يابا لما عدينين وحال شيء أمدا ورئين الصومك الواجبي آيات إلهي وحولي لعلكم تتقون تقوى محل إلى كلك آيات وحلقوا لما يستري كلك بلو جدي لينور رواقي قداش هذي وحلقوا لما يستري لعلكم تتقون وحلقا يابا إن الحبستان بيش كلك وابل أو تقوى كساب سنوي تقوى كلك علماء أي كهالين أنت فرها بدن وحيلين وأوامرت أو لقاته هي نواهيد أو لقاته تقوى وحساس البلد هذا علماء بركض وحيلين هدي أضربت التقوى إن معنى هذا فهمته ميل أو أقولين وإن لقوا أرق ميل خير أهل الربنا وإن لقاوي علماء بركض معني تقوى محيل ميل ماشي خير كمرك لقاهله تقوى دي وتكون سفيسنتها مسايد كي لقوا أركايا ماشي قرآن كلقوا برناي ماشي كتاب كلقوا أقريهاي ماشي محاضرات كسعتي ميل ولا ماشي قرآن كلقوا دقناي يا لقوا أركايا ميلها فيلم كإيا ميلها بركة لهين شنبوين كإيا فيلم هذا إياه روح لقوا أركايا إله خير كإله تقوى بيش نقولك وحال هذا يدرأ كل شهر القرآن بالليل هذا وبيش القرآن كسود قوي قال تعالى إلهي وحولي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أيضا إلهي وحكله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشهر رمضان أو قرآن كالسود دجي قرآن كالسود دجي بشهر رمضان بالسود دجي marka soonka waa waqti yimaada sanadkiiba hal mar bil buu yimaada 12 bilood marka sanadkan waxa inoo soo galay bishii soonka ruux kastoo muslima ama gabadh kastoo muslima inuu ka faa'iideysto soonka mubaaraka la rabaa oo xusuusto dadka walaaliha xaaladooda dadka markooda way dhinteen dadka sanadkooda kula jooga way dhinteen hadda mana soomaan mana salaadaan dadna xabsiyay ku jiraan oo laga yaabaa inay iyaguna ay tabar laayihiin dad way xanuunsan yihiin oo laga yaabaa iyagana xawaasha walaalaha inay iyagana dhibaato haysataa laga yaabaa ruuxa kolka muslimka soonku waa madariso oo nafta ayaa lagu tarbiyeeyaa 17 saacadood baa wadankan hadda caawa la soomaya wadamo marka 17 saacadood baa la soomaa mid dooni maatay insaanku wuxuu u baahan yahay cunto iyo biyo iyo cabid iyo daawo u baahan yahay maca dalka waa laga soomay marka ruuxa waxa weeye laba itijaah buu soonku leeyahay itijaah waxa weeye ruuxi oo ka hara waxa xun oo dhan muharramaadka oo dhan ka istaaga sida xantii iyo xasadkii iyo namiimadii iyo kidbigii iyo dadkood ku xadgudubto itijaah kale waa maxay adiga u dhaqaaqa xagga khayrka oo mustawa fiican oo akhlaaqa sameeya maxaa kamid ah mustawa inaad wax bixiso inaad ducayso inaad quraan aqrido inaad dhikri aqrido inaad wax wanaagsan samayso marka soomku waa madraso oo kaamila way labada itijaah bayna u badan tahay way marka kale haddaan wax yar ka fiirina soonka leelatul qadri baa ku jira habeen soddonka beri waxa ku dhex jira habeen leela leelatul qadriga oo fadligeeda ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa uu ku sheegay habeenka lama oga meel ku jirto inkastoo axaadiis ay u badan tahay 10 dambe inay ku jirto
weliba meelaha witriga inay kusii jirto haddana waa la qariyey. qarintu waxay ku timidna waxay ahayd bal xadiid bukhaarigu u wariyey cubaadatu ibnu saamid u wariyey yaa wuxuu yihi nabigaa soo baxay sala allahu calayh wasalam inuu noo warramo bileylati alqadr. markaa laba nin baa isdagaalay buhi oo muslimiinta ka mida. markaasaa nabigu wuxuu yihi waan soo baxay saan idinku warramo leylatu lqadriga anoo xusuusan kolkii fulaan iyo fulaan isdagaaleen waa layga kor yeelay buui wacasa an yakuuna khayran lakum buuri nabi. waxaa laga yaaba inuu khayr idin yahay haddii la ogaan lahaa habeenka uu soonku yahay habeenkan baa la cibaadaysan lahaa markaasaa deedna nin walba iska seexan laha. marka waxaa laga yaaba inuu khayr inoo yahay waxyaalooyinka la qariyay buu ka mid yahay. soonka waxaa la faral yeelay sanadkii labaad oo hijrada. marka xadiid imaamu axmed uu wariyey bayhaqi iyo nasaa-i waxaa ku jirtay abi hureyran laga wariyey ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yihi lamaa xadara ramadaan qad jaa'akum shahrun mubaarakun. wuxuu yihi nabigu waxaa idiin imaaday buu yihi bil barakaysan iftarada allahu calaykum siyaamah ilaahay uu soomkiisa faral yeelay tuftaxu fiihi abwaabu aljanna wa tuglaqu fiihi abwaabu aljaxiim. waxaa la furaa 8 jannaa la furaa wa tuglaqu waxaa la xidhaa abwaabu aljaxiim naaraha jaxiibadoo dhan wa tugallu fiihi shayaadiin buuhi nabigu waxaa la katiinadayaa shayaadiinta. fiihi leylatun khayru min 1000 shahrin buu nabigu waxaa ku dhex jiray habeen oo ka khayr badan 1000 bilood waa 83 sano iyo weliba waxoogaa bilaa maya 83 sano iyo waxoogaa bilooyina xuli man xurima khayra faqad xurima nabigu ninkii bisha laga xirmaaniyey khayrkeeda khayr oo dhan waa laga xirmaaniyey. rasuulku waxaa kaloo yihi sala allahu calayh wasalam xadiid dheeraa aynu goordhood barhkii soo akrinay waxaa ku jiray waladii nafsu muxamadin biyadihi la khaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi ilmisk. xadiidkaa waxaa qeybtaa ku jirtay waxaan ku dhaaranhayaa buu yihi allaha gacantiisa ay ku jirta awoodaydu afka luunka kaga yaalla ayaa ka wanaag badan buu yihi nabigu yaa ka udgoon buu yihi riixul miskiga waxaa la yidhaahdo baraafoonka ka ugu qaalisan wey. ruuxa maxaa laga rabaa kolka muslimkaa ama gabadha muslimada ama wiilka muslimkaa waxaa laga rabaa waxyaalooyinkan soo socda inuu iska ilaaliyo. laqwiga ka mid a laqwi waxaa weye hadalaan faa'iida lahayn wey. waxaa ka mid a inuu rafadka naag inuuna isticmaalin muqadamaat uljimac uusan samaynin qayla inuusan samaynin been inuusan sheegin zuur inuu been abuur samaynin shahaadu zuur oo kale samaynin xan inuuna samaynin isku dar inuuna samaynin iyo wixii oo camalka ka hadlaynaya. rasuulka isagoo arrintaa ka warramay wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laysa asiyaamu min alakli waashurbi buuri cunitaanku ma aha cabitaanka iyo cunitaanka oo laga sooma soomku ma aha inama asiyaamu min allagwi waalrafath buuri waxa weeye buuri isagoo laga soomo waxa hadalka xun iyo waxaan faa'iidada lahayn. xadiidka abu xaakim iyo saxaaxahu calaa shardi muslim. nabigu waxaa kaloo yihi ruba saa'imin laysa lahu min siyaami ila aljuuc. waxaa dhici karta buuri fara badana ku soomay oo soomkiisa gaajamayn wax kale ka heli markaa dadka cayda oo dadkii layso oo wax aad xamato oo inta camalka uu kaa baabi'i wey. xigmada bal wax yaraan ka taabana soonka maxay xigmadiisu tahay horta. xigmad baa ila wax walba u dhacaa xigmada ilaahay uu soonka u waajibiyey waxaa ka mid a baa la yidhi naftaada inaad tadribayso calaa muraaqabati illahi subxaanahu wa tacaala. ilahay inuu ku muraaqabaynhayo ood naftaada u sheegta wey. waa midda kolka nabiga uu ku magacaaba alixsaan xadiidkii dheeraa ee aada weydana rasuulku wax badan kaga warramay maqaamka ixsaanku kaga warramay. muxuu yihi an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fa inahu yaraaka. haddii adu aadan arkin ilaahay isagoo ku arka marka kaanama adoo arkoo kale ilahay inaad u caabudaa la rabaa. kolka tadriib waxaa weye midda labaad taskiyatu nafsi wey naftaada inaad wanaajiso. min xikami soom maqaasidiisa waxaa ka mid a naftaada inaad taskiyaso tahiriso oo wixii xumaa o dhan oo macsiya iyo wixii xumaa aad ka ilaaliso. rasuulku wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam man saama ramadaana iimaana واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi. ruuxii sooma ilaahay darti u sooma isagoo rumaysan oo ajri doonahaya dembigiisa ayaa loo dhaafaa. waxyooga xigmada waxaa ka mid a tarbiyat liraada iraadadaada oo tarbiyayso. soomku wuxuu cazimaynayaa niyadaadu kor u qaadahayaa wey. saasuu nabigu wuxuu yihi soomku waa nisfu sabri buui sabrkuna waa nisfu liimaan wey. waxyooyinka lagu xigmadeeda waxaa ka mid a soomka islaamku wuxuu baranhayaa nidaamka soomka. fadacaamu lahu waqtun wa soomu lahu waqtun. dadka isku nidaam wey
كل baa la wada soomi kol waxba la wada cuni waxyaalaha xigmada waxa kamid ah baa ruux inuu barto tacaawunka iyo ta'alufka oo isku meel ku afuraan waqti waaxid wada afuraan cuntada isla xusraan siyaam kolka waa iclaan oo la iclaamiyay mabda wahdatul muslimiin muslimiintu quwadooda in la mideeyo umadu ay soonto oo ay afurto fi shahr waahid wa shucuur bil quwwa way waxyaalaha xigmada taasa kamid ah way haddaan wax yar arkaantiisa taabto intoona iga dhamaanin warku iyo wax buriya bal inta aan yar ku daro soonka arkaantiisa culimadu waxay waa laba mid waa niyada rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam inama al-a'malu bin-niyat marka xadiidka haddaad fiiriso inama likulli imrin ma nawa xadiidkaas wuxuu ka waramayaa shay kasto cibaado ah horta niyo u baahan yahay soonku kolka waxa ugu horeeya rugna ugu horeeya waa maxay waa niyo niyada waxaad samayn kartaa fiidkii baad niyoon kartaa markaasaa waxaad hiraabti soomi kartaa hiraabti baad niyoon kartaa waa cibaadada kaliya ee niyadeeda horey loo dhigay cibaadooyin kale oo dhan salaada ka soo qaad duhurka casarka maqribka wax kastood qabanaysa niyadiisu waqtiga aad qabanayso laakiin soonka waxaa lagu ogol yahay cibaadadiisa inaad horey mariso oo maqribka markaad afurto si aadan u iloobin aad ka soo aad niyooto oo tira berri waxaan rabaa inaan niyoodo koo niyadu qalbiga way ku qabato كلامات ركنا لبعض وامحي والإمساك عن المفطرات وح الله وحي كأفرين لها وتكيس تاكتو يا أركان تكملها علماء ذو النية ويسكو خلافين وحيدا هذين والبنية المياه لبارين هيا ميسي بش أول كده هدا النية محاكا إيمان هيا شافعية يا حنفية يا حنابلة وحيدا هبي والبواد النية نيسا يو حجيزين هيا يوم والبحر رمضان كساي وها عبادة مستقلة وي إمام مالك سوي حلاه والهبين كورا يروح الدو واجبيو sidaas taa ha ku socdo ilaa soonku inuu ka kala go'an mooye laakiin soonku hadduu ka kala go'o gabadhi baa dhiigi ku dhacay safar buu galay soonku ka kala go'ay niyadu wuu cusboonayn buu leeyahay waxaan rabaa kolka inaan ka hadlo waxyeelooyinka soonka fasahaadiya oo ruuxa muslimka inuu iska ilaaliya rabo labaan u qaybinaynaa kolka shay hadduu soonka ka fasahaadinayo haddana qaddu kugu waajibin keliya shayna waxaa weeye qaddi iyo kafaara kugu waajibin labadiiba waxaan ka tirinaynaa kolka qaybta qadaha kaliya keenaysa oo ruuxa kolku suux ka jabo ruuxa qado un baa laga rabaa koo waxa buriya waxaa kamid a cuntada kamid a kas baad u cuntay soonka waa kaa buray qadaa lagu leeyahay waxaa kamid oo kale inaad ka soo cabto iyadana way kaa buraysaa waa laba ka waran adigoon waxba xusuusnayn baad iska cabtay iska cuntay hadhow baad tiri war goorma soon baad ku jirtay soonka kaama burin أرد واحد قرأ كذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويجري روحه إلهي بورابيه هلا دايري أو حسيه خلك الروح وحاله رأي يسوي خصوصا إنه وحبعونه وحنعب متى صدح وحاجة متى صونك بوريسا وصول ما لا نفع فيه للبدن إلى الجوف نجاره وحليك هذا شيء إنه كجاره عن نفع بجر كان ورهين وحاجة ما شيء بعض لقضي قرور بعض لقضي برب بعض لقضي وحاس نفع كومله شيء قاس هدو جوف كاجا مدفن وكجاره أو بعضك وكجاره وحاول يروح وكبرين هيا وحلا مدو كل بيها تاصن دار سطوك وعران جوف ودعان يجري وكبرين هياوي وأكون رسولك ولجري صلى الله عليه وسلم حديث كان ويدل عائشة إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرجه واحد جودها حاجة قال صوك بريا لكن وحي كان صوبها ما يقول مثل أفراد صوك بريا حكم إن المنطق قصد ولو هبير هذا أفكار عندي جلس أسكت كينتو رسولك وحولي صلى الله عليه وسلم ومن استقى عمدا فليقذب روحي كس السجام منتجية حق الضيبول حديثك أحمد يا أبو داود يا صوصاري وهيك بريا وحكم إذا قبل يديك كل عاي صونك وكبرها هي النفاس كما كل عاي وين شيء وكبرها هي روحي بالشهوات سكا كيري استمنا ليلا ذا قعدت تيس أمناك تيس وشهوات سكا كيري وكبرها هي صونك نية المفطر باي ماضي روحي ونحول نية دراسك أفرط نية بقولة تكون قبتي صونك وكبرها هي ومن هو الفطرة وهو صائم بطل صوم هو كون هداد نيوته إلى المانت سكا أفرطه وهو صونك وكبرها هي كسجالات سوق بريو حكم إذا وحيالوي ما وحلاقي يابا إنات إصلاحيد وحن قاض سماه أذن أنا ملين هيسي إنه وحاجة سيئة مثلا وحكم إذا وكله هذين كي بس له وحباك هاري مركز صوت وستيو إلا صلاة وعد وعنتدي كده ركت كل قاعد عنتدي كده ركت ما واحد ركتيبا صلاة دين الدرارته وتسوي إذا مالته لكن مالته وتسوي
كذلك وحلا منها وحاس القرآن هذا وايد عضي بي بس كعب تيو كل بي سامبوسكي شرابك إسكعب تيو وحدا على القرآن هذا زوجد صون كاس وكابوري أنت وتسوي مرانا إذا قرآن لك النبان ما نتسوي علينيس صادرت باللبضة وقت أرويرت إيام مغربك صونك إن له بصدق على الربا ومدنا قبل كده إنه دعاي له بصدق لأنه هراي له أفره ترنا إنه واجب بريين له بصدق وحصل لنا كل واحد كينا هي الأنكسر شاكيني وواحد صون كنا كاجي من وحلقوا واجبين إنها تسوق قضاء سكلي وحاجة شيء كفارة يقضوا ذا كينا والجماعة نبى نكتيس يكون باللابي سوى صومن خلاص كل كوكجي صون كيوي كفارة الأولى يقولك صوك قديسي وحلا صعدة كفارة أي الله صعدة وي كفارة المال بدل ما تكون أركي دونتان وهي السنة وحكم إذا إنها هو سحورة طهرت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشهر رمضان كوحاوي يبو إلهي مد القرآن كاللي سود الجيي هدى للناس وي ضدك أيا هنونا وذلك يسمى مساجد ودنا وبوحدة وبينات من الهدى والفرقان بالهين وابل او وحو البحنون يفرق يا وحو البكلا بحين وحو لو عدي روحي قولك وحا ليدي بشا غار او قان غارها صوم فمن شهد منكم الشهر فليصم روح على الروح بشا غار واودي كرا ها صومالي حدو روح عذر دار يا شكورن آيات غيبت ذنب إلهي وحوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر روح هدي مرل يهي مرلك وحا سوق لها عذر رب لما سوق لها وقت ينادى نورث أمريكا وحالتها على سنكر وح ليلة ديكر وح ليلة على سياسة أجرى روحي مريل أنسومي كرين حنونا لاسا كمذا كفارو بحين يا أسومي كرواية مرلك ولا كلا قادي ومرلو ما أنتك وهي لكن أتكبك ستو أي صورة قلتاي كا كفارة لما بحينها وإسكت سوء أسكت أفريسا مركز الله نعطيت قضينيسا لكن صوم هذه دخاتير مسلم كأي دخاتير للتجربية هذه الروح الحنون كان كما بحايو روحاس كفارة بحينها وأمر الوي روحاس كفارة أو بحينها يقولك وحاول مالتي مدوي لما جمعنا هذه راشين صار لو وبوحيو وحمد بالي هذا مد كاسا يقولك وحون نقولنا يا إنه مالتي كفارة كأجودو هدو سيدا في عن الروح مسكين كلا جوجو صباح دي يقولك واجب بريء أيو سينها يا متكي هدون اللي جوجين أو روحي ماشي هتكون بحب أذن جوجين أنت سكو أوروريس هل مروق أي بدتك مساكين توا صورة قلوي هل مد على جرب أمريكا سودون مدوي لو جمعها جا مد كي مد يا مد ليدا مد كاس يقولك الروح دي بهياو وحبوا كرن ميسادو يسوي إنجازي بريس كيسوي إنجاز ما تصينايسا قلت الغالي كم مجالات لقعنا هدي بريس لقعنا هدي راشين كلا لقعنا وحي لقعنا على بحنا يا الراشين وحكى الله كهدو روح سفره سفر كاس أما هذا وهذا أما هذا وهذا سفر مسافة جاله مسافة صلاة اللي جمعيه السنة اللي أقول يهي إنه إسك أفره كون هدو ديارة راعي هدو بابور راعي سفر كل هدو سفر كجيله رخصة اللي أقول يه هدو إسك صوبنا وهيل كرا هدي أو إسك أفرنا كل هدو مسافر يهي وهيل كرا كل الروح محل جربها في عدة من أيام أخرى معلمك على أو معلمها هين وسفر كياي أما حنونك هيي بسوماي وحد يكرت كلك إنه سفر كاو سفر ديريه لح بيودك وقعته بينهم بعضهم تسوي يسوي كلك إلهي وحول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي وحيد اللي دونه يا با ليلي فضيت لكن عليس إذن لما ربو وحد لي تضبيه طبعا ساعدات بابا صورناها بيا أنا عبينه وأنا بعد عبينه وحمد لي بعد تماله واسوي كرتا وهبينك إسكعون هبينك درك تضبيه طبعا ساعدات إسكصو ولتكملوا العدة إلى هيدي وين الترى لما يسترتان ولتكبروا الله على ما هداكم وين الإله وينسان هنونكم إذن هنوني ولعلكم تشكرون إن شكر ذا تفر بدين وحيلين صونك وحلقه لا وحكم العافمات عروش عنتد الدشي أيا بشار نصنيس عافمات جاجة دريميزا dadka kale walaalaha gaajaysan inay gaajo adu hadda waxoogaa haysato inay dadka gaajadu haysa adu wax siiso ayaad bisha dareemaysa bishaas waa bil aad cajab badan oo dadku wada siman yihiin isku waqti baa la soomaya isku waqtina waa la wada afurahay haddii aan kolka wax yar oo fadaaishiisa dib ugu noqono
حديث إمام أحمد يا مسلم يا نسائي صوت صارين أبي هريرة أوريي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رسولك وحولي صلى الله عليه وسلم عمل كست إلهي بايري أو بن آدم كأو سمايو إساقا إسكال إلا صومك موي لكن صومك أنيقا كجزا سيبو إلهي والصيام الجنة تنبري النبي قاشان وي صومك فإذا كان صوم يوم أحدكم mid idinka kamid markuu soomo falaa yarfath yuusan xumaan samaynin walaa yaskhab yuusan dadka ku qaylinin walaa yajhal yuusan dadka dhibin fa in shaatamahu axadun aw qaatalahu hadduu ruux ku caayo ama ruux kula dagaalamo falyaqul ruuxa yidhaahda baa layidhi innii mru'un saa'imun maratayn waxaa tira war anu waan soomanahay laba goordhe iga iska daadhawo إني امرؤ صائم مرتين سيدا دبالي ما لما اوغلوك ان تروحي لا دغالنتو ان لا دغالنتو روحي لما اوغلا ما يلي اجريغي با نسقامه وحو رسولك يجي حديثك مركو سي ودي وللصائم فرحتان روح صائمك لبا فرح بوله او يفرحهما لبدا و فرحايا اذا افطر مركو افر فرح بفطره وإذا لقي ربنا فرح بصومه. حديث كهذا في رسول حديث آدي يعني معنوين وجروي حديث القدسي روح حالي لما قرب فرحايا مدو حاوي كلك انت آذانك كلفته أظن ما أنتم آذو جاجزنا بيه يعنتدي القصة اللي فرحيس مدة لبعض حاوي قال إلهي لك كلانته وصومك هاقول لما يسترن ويلي هذا إلهي وروحاني وإصومنا انت أصلا ساعدات بإصومنا عنتدي بداية شاهي بداية إسلانتي سي بداية هذا الكحم بداية وحول بداية صوتي بكون دعواني روح مالتنا وفرحي بالي سادر تقولك حديث كاسي حكو تسينيا إنو نروح وحن سمين كرين غيري كرين اسكا دادك نبي كرين لما أقول وحا صدر وحالا مالتنا ديجريكم مشغوشو إيا قرآن هذا غريدوي صونكم مركب وحوي وعبادة وآد عجب بدنوي مسلمين تقولن وموسم خير ويمدوي كلك الروح هو اللي أجر بتصنعي روح با قرآن أقرين هيا روح با صدقة بحين هيا روح با وحوي ذكري كلا وضع روح با تتعاون هيا ويحو دنبو عاون هيا